سيد نور حسن iyo Asad Xasan waa 3 sano jir iyo 2 sano jir naafa ah. Sayid Nuur isaga iyo walaalkiisa ka yar waxay ku nool yihiin mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo. Waa qoys ka mid ah qoysaska abaartu ay saameysay ee ka soo barakacay deegaanada Koonfur Galbeed. Deegaano aad u fog ee gobolka Bay ka tirsan ayay ka soo qaxeen si Baydhabo ay u soo gaaraan dhowr kiiloomitir ay soo lugeeyeen. Waa qoys kala dhantaalan, hooyadooda waa ay geeriyootay, aabaha dhalayna waxa uu ka mid yahay dadka ku nool kaamka, balse ma awoodo inuu kaafiyo nolosha qoyska maadaama shaqo la'aan uu yahay. Sidoo kalena xanaanada caruurtiisa naafada ah ay u sii dheer tahay. Caruurtan aad u jeedaan daawadayaal waa caruur naafa ka ah lugaha iyo weliba xubno kale oo jirkooda ka mid ah. Sidoo kale canuga yar waa 2 sano jir, magaciisa waa Asad. Naafanimada lugaha waxa uu sii dheer maskaxdiisa oo la mid ah canug yar oo hadda dhashay, balse 2 sano iyo in ka badan ayuu sidan yahay. Asad iyo Sayid hooyadooda ma noola oo markay dhashay ayay geeriyootay. Hadda waxaa gacanta ku haya ayeeyadooda oo kula jirta kaamamka Baydhabo. Ayeeyo habeen iyo maalin waxay ka fikirtaa cunadooda, hoygooda, xanaanadooda, balse intaasi oo dhan ma awoodo. Kadib markii aan ku booqanay kaamamka ay ku jiraan oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ayaan muuqaaladooda ku baahinay baraha bulshada, isla markaasna aan u qaylo dhaaminay si walaalaha jooga gudaha dalka iyo dibadduba ay u soo caawiyaan. Sayid Axmed Shariif Xasan oo jooga dalka dibadiisa iyo Maxamed Abdiraxmaan oo jooga magaalada Baydhabo ayaa noqday dadkii ugu horeeyay ee gargaar la soo gaara, isla mar ahaantaasina ka soo jawaaba baahida kaamamka ku haysata ilmahani aadka u yareer isla markaana naafada ah. Lacag uu soo dhiibay Sayid Axmed oo jooga dalka dibadiisa ayaana loogu deeqay qoysaska. Sidoo kalena waxaa loo iibiyey dhar loogu talagalay caruurta iyo ayeeyadooda, joodari ay ku seexdaan iyo busto ay dhaxanta ka hogsadaan. Ruqiyo Sheekh Abdullaahi oo ka mid ah gabdhaha Baydhabo ku nool ayaa loo soo wakiishay in deeqdani ay gaarsiiso qoyska ka dhibaataysanaa ilmaha yar. Bismillaah. Ilaahay mahad sugnaatay kusoo dhammaan intii oo mayban ka mahadnagaane intii oo hadhiibideen dadkii lacagtan hadhiibideen walaalnimada awlaadun boosay sida wallanko qabada runtii ma ogaaytana usbuuc ka hor intii una haduubni awlaadan dhibaatadii ku sugan yihiin geekana ilaahay mahad iska leh yar walaalkaana ilaahay siina ajar ihsanaad ku sii oo Sayid Axmed leerow oo wadanka Mareykanka rooga iyo awlaadun mayban ka deeqay dhar iyo joodariyaal idirama yaan ka deeqay iyo kootiin haysan halaal shay dhar ka badan haysan ya walaalkay mayban ilaahay suurtagal intiisa han ka deeqa qof walba 4 joog dhar iyo hal joodar iyo hal diran kaamka guudna hiraaftan mayban sameeyay bidaamin oo yoon dadka oo kaamka deganaayn ciidanka kama hadnagaan geekana galabtana mayba gudoonsiyahay awlaadi dhar kalaanka talagalay. Ayeeyada haysa ilmaha naafada ah ayaa u duceysay walaalaha deeqda soo gaarsiiyay iyadoo aad ay u faraxsanayd. Ahmad bismillahirrahmanirrahim. Sayid Ahmad maanta khamiista tantii waliisa dhiibi oo ilmooway naafigaayaan aan walan hayna oo in gaan qobadi. Sayid Ahmad intii maanta oo ilmoogana dharangilaan lahayn oo dharka yeesheeni oo ka mahadnaqay oo dhibaataysanay oo wala nasiyaw lahayn oo dharka naftiisa aan hayna wal muslimiinta aqaadi leen giliyay oo Sheekh Maxamed yeesheenti ka mahadnaqay ka shukrin.